soo dhawaada naagtana u jeedin gabadh shaqaalaha ay keensatay kadibna shaqaalaha sawirka inta aragtay waxay weydiinayaan midka ninkaaga miya iyadoo u jawaabi rabto isla asagii albaabka ka soo galay iyaduna waa tan inta orday miiskan hoostiisa galay midaan waxay la yaaban tahay sababta gabadha shaqaalaha ay u cararayso ninkeeda wuxuu weydiinaa maanta yaa ka dhaf guriga waa nadiifisay waxay u sheegaysaa inay gabar shaqaalaha keentay kadib wuxuu dhahaa aawayadii markay aragto mid shaqaalaheeda u baaqayso waxay ku dhehaysaa way maqanta hadda ma joogto bariyeena soo laabanaysaa wuxuu ka codsanaa marka inay casho kale kacsan diyaariso maadaama ninka booskiisa oo caaw u imaanayo sababta uu imaanayo wax kale maahan aniga balamiye wuxuu iga ballan qaaday inuu shaqada ii dalacsi doono iyadoo hadalkaas markay maqashay aad ugu farxaysaa kadib korow aadamada shaqaaleedna waa tan meeshii ay gashay ka soo baxay intay u timaaday waxay ku dhehaysaa ninkaaga nin wanaagsan maahan kadib waxay weydiinaysaa sidee ku ogaatay waxaan ku ogaaday ku dhehaysaa anigu wadankan ma u dhalan ee soo galootiyan ahay maadaama uu isagu meesha soo galootiga ka shaqeeyo markii aan u tagay si uu igu shaqeeyo waxyaabo qaldan oo ii weydiistay midaan waxay taagan tahay ninkayga waa nin wanaagsan waa aqaana waxas ma samayn karo iyaduna waxay ku dhehaysaa aniga keligii maahan dad badan oo sidaa ku sameeyay qofkii ka diida wuxuu raba inuu u sameeyana lacagta ku laba jibaara anigana lacagta igu laba jibaaray sababta aan shaqaale u noqdana waxaan rabaa inaan lacag aruursado aniga uu tagayo oo la soo hadlayo ku dhehaysaa laakiin iyadu way ka diiday inay u tagto isagoo janjarta ka soo degayay maqlaysaa kadib meeshii isaga carare midaan waxay aaminay la'ada waxa ninkeeda laga sheegayo waxayna isku qancinayaan inay waxaas been yihiin waxay maqashana aysan jirinba asagoo sii baxayo waxa weydiinaa hadal maqlayo qofkii kula hadlayay uu ahay waxay ugu jawaabaysaa gabadha shaqaalaha oo cusub waxay ii sheegtay inay adiga ku tagtay si aad shaqo ugu qabato adiguna aad weydiisatay wax qaldan si aad shaqada ugu qabato markii ay diidana lacagta ku laba jibaartay maalin kale midii shaqaaleedu ordisa guriga imaanayso naagtii waxay ku dhehaysaa wax qaldan aad samaysay wixii aan ku sheego dhan ninkaadii aa u sheegtay kadib maxaa dhacay weydiinay waxay u sheegay markuu hadalkaas maqlay inuu ka kansalay waraaqadihii soo galootiga wuxuuna igu dhahay haddii aad rabtid inaad racfaan qaadato lacagta waa inaad saddex jibaartaa isla markii isagii intuu yimaado gabadhii wuxuu ku dhahay dokumentigaaga oo dhan wuu dhacay marka hadda gurigeyga waa inay iga baxdaa sida ugu dhaqsiyaha badan markii ay baxday xaaskiisa waxay u sheegaysaa inay gabadhaas gabar wanaagsan u eg tahay laakiin isagu wuxuu ku dhahay gabadhaas mid wanaagsan maahan iyadu waa dembiile waddankan qaxootiga ku tahay ugu dambeyn waxay iska dhigaysaa wax hadalkiisa ku qancay laakiin taleefankiisa jeebka kala baxay habeenkii markii la gaaro waxa uu imaanaya ninkii booskiisa ahay xaaskiisiina waa kanahay miiska cashada waxay soo saartay sawiradan weynta oo sawiradu ku dhadhagan yihiin midkan booska sawirada maxaa waay marka uu weydiiyo waxay ku dhehaysaa waxaan rabaa ninkan khiyaanadiisa inaan ku tuso caawa 6 bilood ka hor wuxuu aaday jasiiradaha qaaliga si uu ugu soo dalxiiso gaarigan cusubna isaga iskale katiinada dhimankan anigu soo gaday laakiin midka booska wuxuu taagan yahay ninkaaga waa ninka ugu wanaagsan ee anagana la shaqeeyo hadda kadibna mid isaga ka wanaagsan ma helayno asna waa kanahay markii la amaano uu qosle laakiin qosolka ma sii wadanayo markii ay ninka booska ahay waraaqadan u dhiibto waxayna ku dhahay dadka u yimaado si uu ugu shaqeeyo si wanaagsan ma ugu shaqeeyo lacagta ku laba jibaara kadib wax qaldan u weydiistaa marka waxaad ii sheegteen lacagahan badan meesha uu ka keenay hadii aad lacag yar idinku siisiin ninkii booska ahay wuxuu ku dhahay naagtan ma maray waalata ee hadalkeeda dhigaysan waxna ka soo qaadin laakiin isla markii meesha waxa soo gaaray mid shaqaaleed oo wadata waraaqadii uu ku dhahay lacagta soo saddex jibaar dokumentigeedina markii uu tusto wuxuu u sheegay inay u saxan yihiin wax walba shaqadeedana loo qaban doono midkeena wuxuu ku dhahay birita xafiiska ay imaanaysaa si ay wax walba u cadeyso lacagta meesha ka keentana aad u sheegto wuxuuna u raacinaa inuu ka cishti booskii cusbaayo shaqadiisa loo dalacsiin rabay muuqaalkuna intaas ku ekay dalka soo gaartay emoji leeg noosa soo dhawaada dhakhtarkan bukaankan iyo xaaskiisa meeshan joogo intuu yimaado gabadhii wuxuu ku dhahay waa ka xuna ninkaaga hadda kadib cuuriyaan waaye iyaduna waxay taagantahay haddii ay sidaas tahay hadda kadib isaguna ninkayga masii ahaanay faraantigan iska siibay ninkuna isagoo naxsan oo dhakhtarkii wuxuu weydiinaa si loo xallin kara ma jirta wuxuu ugu jawaabaa waa ka xumaay hadda kuma dhihi karo waa fiicnaan kartaa xaaskiisoo ka tegi rabta intuu celiyo wuxuu soo xasuusinaa ballantii ay kala qaadeen oo ahayd wax walba oo dhacay inaysan kala tegi doonin laakiin iyadu waxay u sheegaysaa inay weli yar tahay ayna u qalantay inay qof kala guursato kadib meeshii isaga tegay isaguna faraantiga ay iska siibtoo soo qabana dhakhtarkii wuxuu ku dhahaa adigoo mahadsan faraantigan intaa qaadid ka dabageey waxaa laga yaabaa inay go'aankeedii ka laabato dhakhtarku faraantiga markuu soo qaada meeshii la rabay inuu ka dabageeyo qashinka gurida galabtii iyadoo gurigeeda joogtaa waxaa u imaanaya dhakhtarkii inuu gudaha soo galay intay u ogolaatay waxay weydiinaysaa meesha maxaa ka qabanee mise qof walba oo bukaanadaada ka mida familkooda booqataa wuxuu ku dhahaa sidaas ma aha ee ninkaaga wuxuu igu dhahay fasaxay tahay qofkay rabta way raadsan kartaa hadda iyadoo aamina la ay waxay weydiinaya oo dhammiya kaa taa hadda haa ugu jawaaba taas anaa kaa hubo laakiin ma laga yaabo qofkii aad daraasi lahayd inuu hadda kuu dhow yahay albaabka lagu soo gargaraaca markii ay furtana waxay arkaysaa inuu nin boolis yahay ninkaagii guriga ma joogaa oo weydiina iyaduna waxay ku dhehaysaa isaga shilow galay sidaas darteed isbitaalku jira ninkaaga wuxuu ku guulaystay ku dhaha bilada la siiyo muwaadinka geesiga marka aniga la soo diray si aan u siiyo waraaqadan uu ku imaan lahay xafladda bilada lagu siinayo waxay weydiinayeen ninkayga soo bilad ugu guulaysan karaa isagoo gaari uu dardaray wuxuu u sheegaa markii uu gaariga ninkaas dardarayay inuu badbaadinayo gabar yar marka hadda bahashan waa inaa qaadaa xitaa hadduu isbitaalka joogo uu ugu geey ninkii booliska markuu baxay nafteedii waxay ku dhehaysaa qof xunaa tahay laakiin ninka dhakhtarka wuxuu u sheegaa inuu ninkaas cuuriyaan yahay haddii bilad la siiyana ma aha inuu soo kacayo intay soo baxday isbitaalkii dib ugu soo laabanay isagana waxay u sheegaysaa inuu bilad ku guulaystay iyo inuu iska cafiyo intaasna waxay ugu daraysaa maana ogeyn inaa qof badbaadinaysay iska kii cafi waxaana kula joogi doonaa inta cimrigaaga ka dhima dhakhtaradana intay u timaaday waxay dhehaysaa ninkan meesha cimrigiisa masii joogi doonay wuu kacaa dhibaatada soo gaartay aad u fududahay waxayna ku qaadan kartaa inuu fiicnaado 5 bilood ilaa 6 bilood kadibna wuu soco karaa wuu boodboodi karaa xitaa hadduu rabo wuu ciyaari karaa intay soo istaagtay waxay ku dhehaysaa maxaa ka wadaa dhakhtarku wuxuu ugu dhahay ninkan dib damba mu kici doono ayaduna waxay weydiinaya dhakhtarkiina yaa waay dhakhtarka ka sheekeynaysa ma maqlin iyadoo dhakhtarka magaciisa waraaqada ka fiirarto isla asaga iimaana iyaduna waxay ku
dhehaysaa waa kana markii uu arkay inuu baxar ku jiro inuu baxo isku dayaa laakiin way celinay waxay weydiinay adigoo kalkaaliya dhakhtar maxaa iska dhigta dadkan maxabeed ugu sheegtay waxay ku dhehaysaa qorshaaga waa fahmay marka gabarta aragtay waxa go'aansatay inay ninkeeda cuuriyaan ka dhigto kadib iyada guursato faraantigii uu dhakhtarku qashinka ku tuurayay intay soo bixday iyada ku wareejinay isaguna waxay u sheegaysaa inay ku dacwo doonto maamulaha isbitaalka markii uu arkay inay dhab ka tahay oo ay baxdo uu ka daba baxaa si uu u celiyo muuqaalkan intaan uu ka ekay hadda halkaas soo gaartay leeg noo saar soo dhawaada gabadhan iyadoo gurigan hagaajinaysa ayaa ninkeeda qashin uu gacanta ku hayay meesha ay hagaajinaysa ku tuura sababta uu sidaan u sameeyay markii ay weydiisay wuxuu ku dhahaa midaan shaqadaada waaye ee shaqeyso anigu asbuuca dhan ma nastay waa shaqeeyay laakiin anigu midaan kaaga roona waxa waay shaqadeeda lacag ku helaa laakiin midaan lacag ma ku heshid iyaduna waxay u sheegaysaa inay shaqadeeda lacag ku hesho kadib waxa weydiinaa sidee indhahaaga wax ku argay ku dhehaysaa hadda qashinkan aan meesha ku tuurtaa soo qabanaa kadib sidaas waxa ku helaa $50 qashinkii markii ay meeshii ka qaaday meel qaanada ay furaysaa kadib waxay ka dhex baxsanaysaa lacag $50 intuu yaabo uu soo istaagaa meesha qaanadeeda furaa laakiin wax dhan ma ku arkayo wuxuu ku dhahaa aniga miya ilmo kula noqdo ma igu ciyaaraysaa lacagtan markii hore meesha ku riday haddana waa ka soo baxsatay wax kale ma jiraan maadaama uu aamini waayay waxay u sheegaysaa haddana inay hawl kala qabanayso sidaasna ay lacag ku helayso meeshaan intay boorka ka jajaftay waxay ku dhehaysaa hadda adiga qaanada fur qaanadii markii uu furo wuxuu arkaa inay lacag $50 ku jirto kadib uu yaabaa isagoo aamini la inuu lacagtan meesha ka helay lacagteedii ka qaadanay markii uu ogaaday in meeshaan lacag laga helayo iyadii wuxuu ku dhahaa waa inay tijaabiyaa wax yar suug meeshaan isku dhex yaacsaneed oo intuu qabto uu hagaajinaa markii uu hagaajiyo qaanadii furaa wuxuuna ku arkaa inay lacagtii $50 ku jirto wuxuu taagan yahay marka shaqo kale ishay ka deertaana qabanaya laakiin iyadu waxay ku dhehaysaa midaan shaqadeeda waaye aniga lacagta ka helo marka hadda aniga shaqadeeda qabsanaya adiga leexo isaguna ma ka yeelay intuu ka daba yimaado wuxuu u sheegaa in iyadu iska nasato isaguna uu qabanayo hawsha dhan meeshaan intuu fadhiisiyo wuxuu u keenay cabitaan iyo remote TV-gaaga iska daawo camal markii ay ka ogolaato wuxuu bilaabay inuu gurigii oo dhan hagaajiyo xitaa waa kanaa dharkii dhan waa fiiriyay ugu dambeyn intuu daalo wuxuu taagan yahay waxa u maleynaa inay meeshaan $500 ku jirto waa inaa ka soo baxsadaa laakiinse markii uu qaanadii furay lacag dhan ma ka helayo markii uu u sheegay inaysan lacag meeshaan ku jirin iyadu waxay bilaabaysaa inay u wacdo wiil yar oo iyagu ay dhaleen markii uu u yimaado waxay ku dhehaysaa aabbaha waxaa tustaa wixii indhasarcaadka ahayd oo hadda samaynaysay intuu baxo wuxuu galaa qaanadii lacagta laga dhexelayay gadaasheeda kadib isagu qaanadii uu furaa markii uu qaanada furo wuxuu arkaa inay boorsidiisii ay ku jirto ugu dambeyn wuxuu ogaanaa in boorsidiisa uu cunug yarka lacagta ka soo bixinayay meeshana uu soo gelgelinayay xaaskiisii oo wuxuu ku dhahaa maanta dhan waa shaqeynayay xitaa 3 saac igu qaadatay inaan hawsha dhameeyo lacagna ma helin dhabtii shaqadan aad ay u adag tahay waana dhabar xanuun caadiya iyaduna waxay ku dhehaysaa kaliya waxa rabay inaad ogaato shaqadu sida ay u adag tahay maskaxdana ku haysa dhibaatada ay leedahay shaqadan muuqaalku intaas ku ekay dalkaad soo gaartay leegnosa soo dhawaada ninkan gabadhiisa intuu soo wado wuxuu ku dhahaa ninkan iska bar ninka guursanaya waaye iyadana waa tanahay intay yaabtay aabeed waxay ku dhehaysaa ninkan aashigiisa si fiican u fiiri isaga darbi jiif waaye adigana waxa ku haysa guurso waan ogahow ku dhahaa waana saxan tahay ninkan sidaas waaye laakiin waxaa la gaaray xilligii aad bara lahayd oo aad ixtiraami lahayd qiimaha ay dadka kale leeyihiin waxay taagan tahay haddii ay sidaas tahay waaba ka baxay hadda kadibna guur dhan maliga maqlaayo kadib wuxuu u sheegay haddii ay arrintan diiday inaysan dhaxalkeeda qaada doonin midkan uu yahay wadada keliya oo u furan iyadoo xanaaqsanay meeshii isaga tegaysaa midkan magadab harayo raaca waxay weydiinayeen waa ogahay lacag badan inuu aabbahay ku siiyay meeqay ahayd wuxuu ku dhahaa aniga meeshaan lacag darteed uma imaanin wax kale ma soo doonin adiga ku soo doontay marka haddana na keenay gurigeena aadina xogaa daldaala ka muuqday markii ay gurigii yimaadeen waxay la yaabaysaa midkan darbijiifka guriga uu ku nool yahay isla markii waxay weydiinayeen midkan gurigaaga miya haa ku dhaha midkan waa natiijada ka dhalatay qashin aan wadada ka aroori jiray intuu baxo biyo cad u keenaa iyadana waxay la yaabantaa biyaha cadka maadaama cabitaan cabi jirtay subaxdii kale banaanku intuu baxo wuxuu soo laabanaa isaga oo dhar u wado iyadana sidoo kale dharkan makeeliisa waxayna ku tilmaamaysaa inuu huudhi yahay waxay ku dhehaysaa lacagta maanta soo shaqayso dhan igu soo wareeji midkan dhar maana aniga dhar ku soo gadanaye isna waa kana shilimaad badan oo intuu jibkiisa ka soo bixiyo gacanta u saara waxay u sheegaysaa in shilimaadkan ay suuqa waxbana ka goynin dhulkeena ku daadinay asna shilimaadkiisa intuu dhulka ka aruursado meeshii isaga taga waxay isku dayaysaa inay lacagteeda isticmaasho si ay dhar ugu soo gadato laakiin waxay arkaysaa in kaarirkeeda oo dhan aabeed uu xanibay kadib waxaa ku soo dhacaya qorshe ah inay saaxiibo badan maadaama ay leedahay inay u tagto ayna lacag ka soo deysato intay soo baxday gabadhan saaxiibadeed kamid ah wadada kula kulmee salaan kadib waxay weydiisanaysaa inay gurigeeda maalmo ay joogto kadib ay isaga tegi doonto middan waxay ku dhehaysaa horta haddii aan su'aal ku weydiiyo 2 asbuuc ka hor aa guursatay dharkii arooska maxaa wadataa ilaa hadda midda kale ma xasuusataa maalintii aad guursanaysa hadalkii aad igu dhahday maalintii ay guursanaysay caadi ugu xarakeedo waxay ku dhahday mataqaanaa ninkii guursaya milyaneer waaye adigana waa ogahay ma helaysid ninkaas camal laakiin waa kugu soo duceynaa sida uu heli lahayd waxay taagan tahay marka maalintaas waa kula kaftamaya adiga caadi ma u qaadatay laakiin middan hadalkeeda ma sii dhagaysanaysay meeshii isaga tegay ayadana intay soo baxday gurigeeda dib ugu soo laabane midkii intay aragtay waxay ku dhehaysaa waa kaa raargelinaa wax walba aan kugu sameeyey sababta aan sidaas u sameeyeyna waxay ahayd maadaama aan arrintaada waxba ka ogeyn wuxuu ku dhaha aniga da'deyda aad u yareed markii aan bilaabay inaan wadooyinka qashinka aan ka aruuriyo aan iibiyo waqtigaas oo dhan lacagtii aan ka helay qashin aruurinta waxaan ku awooday kaliya inaan gurigaan ku gato waxay u sheegaysaa horta anigu waan jeclaan lahay inaan anigu lacag shaqaysto aan ku gato wixii aan rabo laakiinse dhibaatada ay haysataa waxay tahay ma aqaani meel aan wax ka bilaabo kadib isagu wuxuu ku dhahaa haddii aad diyaar u tahay arrintaas aniga kugu caawinayo isla maalintaas intuu soo wado shaqo keena iyadana waa tanahay nolosheeda waa markii ugu horreeyay shaqaysanayso bil kadib waxay ku faraxsan tahay maadaama ay heshay mushaarkeedii ugu horreeyay maalin kale iyagoo isla fadhiyo wuxuu weydiinaya maxaa ka fikiray waxay ku dhehaysaa kaliya arrinta aabbeeya ka fikira isagu muusan ila soo xiriirin waxay ugu dambeysay maalinta arooska nambaradiisa way dansan yihiin mana
aqaani meelo ka baxay haddii aan tagi lahaana waxaan ka raali gelin lahay maalintii sidaa ula dhaqmay asna waa kanaahay waa aqaanaa ku dhaha aabbaha meeshu joogo ii sheeg markii ay ku dhahdo wuxuu u tilmaamaa magaca isbitaal oo aabeed ku jiro isbitaalka markay timaado aabeed wuxuu u sheegaya inuu ku faraxsan yahay maadaama ay hadda shaqaysato inay isku filan tahay isla markii isbitaalka waxaa soo gaarayay midkii darbijiifka ahaa jiray kadib waxay weydiinaysaa adigu dhakhtar miyaad ahayd hahaw ku dhaha waa saxanta aniga iyo adiga aabbaha waqti dheer aan isnaqaanaa isagu wuxuu igu soo caawiyey inaan heerkan soo gaaro oo aan dhakhtar noqdo maadaama uu isagu abaalkaas iga leh hadda waxaa la gaaray xilliga abaalkiisa u gudi lahay kadib labadoodu waxay ku heshiinayaan inay mar kale aroos kala dhigtaan muuqaalkan intaas ku ekaya hadda halkaas soo gaartay leegnoosaa soo dhawaada naagtan lacag intay soo qaadatay gabadhan yarta oo ruutiga wadada ku iibinay horteeda ku daadaadine ayadana waa tanaahay markay lacagta aragto dhulka ka aruurine kadib waxay dhehaysaa lacagtan aad ay u badan tahay hooyaday daawadeedana way ku filan tahay laakiin waxay soo xasuusanaysaa inaysan lacagtan iyadoo iska lahayn oo ay keliya dhulka ka heshay maadaama ay naagtii lacagta iska lahayd ay gashay guri meesha u dhawaay waxay go'aansanayaan inay u geyso lacagteeda xoogaa kadib gurigeedii timaada waa tana iyadoo albaabka gargaraacayso iyadii albaabka kama furayso taas bedelkeeda waxaa ka furaya mid shaqaala waxay weydiinay adiga maxaad rabtaa haddii aad lacag rabtid ogow ma hayno mayay ku dhehaysaa waxaas ma u baahni ee naagtii guriga iska lahayd ma joogta alaabka dhunta u wadaaye waxay taagan tahay ma ujeedadoo meeshan way qoyan tahay waa tirtiraaye ee iidhiib haddii aa wax u haydid aniga u geynaaye iyadana waa tanaahay intay lacagtii soo bixiday waxay ku dhehe lacagtaana waddada uga soo dhunta ee ordu gey midda guriga iskale meeshaanay ka dhegaysanaysa wax walba oo dhex maraya midda shaqaalaha iyo gabadha yarta midaan gabadha yarta intay lacagta ka daftay waxay ku dhehaysaa adiga fasaxa tahay waa iska bixi kartaa aniga u geynaayo middii guriga iska lahayd meeshaanay ku dhuumanay ma rabta inay midaan kala aragto kadib keligeeda isla hadlaysa waxay taagan tahay wax badan waa soo shaqeeyey laakiin maanta shaqaalanimo igu dambayso ugu dambayn maanta waxaan awoodaa in aan gato waxyaabo aan hore u awoodin dhar qaaliyahan ka bilaabaa dahabna wax ku xijina xoogaa ay isla hadleeda intay jeebka lacagta gashatay meesha isaga tegi midaan waxay rabtay inay ogaato daacadnimada gabadha yarta laakiin waxay ogaatay khiyaanada shaqaalaha dhinaca kale midaan oo dheheeda maanta ay ugu dambayso inaa gurigeeda hagaajiye u imaanay waxay weydiinay xoogaa ka hor waxaa maqla qof albaabka garaacaya dad miya aniga ii imaaday kulaha adiga qofna musan ku imaanay waxaa imaaday qof tuugsanaya anigana waxaan ku dhahay iska bax kadib iyadu intay iska dhigto qof hadalkeeda fahmay waxay u tilmaamaysaa inay sariirta si fiican u hagaajiso dhinaca kale gabadhii yarteed markii ay meeshii ku soo laabatay waxay weynaysaa bahashii ay ku iibinaysa ruutiga xoogaa kadib iyadoo meeshaan iska fadhido oo isaga fikiraysaa waxaa u imaanaya midii guriga iska lahayd waxay ku dhehaysaa xoogaa ka hor gurigaaga aaday si aan kugu geeyo lacag aad adigu iska lahayd lacagtu intay meeshaan kaaga dhacda anigu qaaday waxaa u dhiibay gabadha shaqaalaha ku ahe ma aragtay waxay ku dhehaysaa anigu wax lacagaan arka mala gabadhaasna waxna maysan ii dhiibin kadib midda yar midaan waxay ka codsanaysaa inay hadalkeeda aaminto waxay ku dhehay hadalkaaga waa ku kalsoonahay waanu ka aaminsanahay lacagtaas aniga maysan iga dhicinay si ula jeedaa u tuuray marar badana waxaan arkay adigoo meeshaan rooti ku iibinaya aniguna waxaan go'aansaday inaan ku caawiyo anigoo rabay inaan ogaado daacadnimadaada ayaa waxaa ogaaday midda shaqaalaha inaysan daacad ahayn marka hadda inta soo baxayd kaala tuuganimadeeda ku soo cadday kadib labadoodu way soo raacayaan middii shaqaalaheed oo rabta guriga dhan inay isaga tagtay ka hor imaanay waxay weydiinaya waqtigaaga ma la gaarin halkee u socotaa waxay ku dheheen mar hore inaan kuu sheegaa la rabay laakiin waa kaa iloobay familkayga ii waceen waxay ii sheegeen inay xaalad degdega jirto anigana waxaan go'aansaday inaan u tago mar labaadee waxay weydiinaya ma waxaa jiro qof aniga ii imaaday oo ii keenay lacag aniga iga dhuntay waxay taagan tahay maya qof kuu yimaada ma jiro keliya gurigan waxaa yimaado kuwa tuugsanaya anigana waxaa u sheegaa inay iska baxaan ka warranay ku dhehaysaa waxaa jira gabar yar oo aniga lacag ii keentay oo adiga iigu kaa dhiibtay kulaha oo aniga miyay lacag ii dhibtay war waxaas been waaye carruurta ayaantan jirto waxay barteen baraankii inay kugu ciyaarayaana laga yaabaa kadib midaan waxay ugu wacaysaa gabadhii yarteed waxay weydiinaysaa qofta lacagta u dhibta midaan miya haahay ku dhehaysaa waa saxantaa iyada waxay ugu tiri aniga u geynayo kadib calaacalay bilaabaysaa iyadoo dhehaysa gabadhan yartaa miya aaminaya anigoo intaasna kuu shaqaynayana miya aaminaysid boorsaday wadatay ka qaadaysaa kadib waxaa ka soo daadanaya lacagtii oo dhan waxay taagan tahay aniga ma aqaanin siday boorsadan lacagta ku soo gashay laakiin midaan hadalkeeda ma sii dhegaysanayso ee gurigii iyo shaqadaba way ka burinee gabadha yartaana waxay ku dhehaysaa lacagtan oo dhan adiga iskale hooyada caafimaadkeeda waa ku bixi kartaa waa kuwaana iyagoo labadooda lacagtii dhulka ka aruurinaya muuqaalku intaas ku ekaada halkaas soo gaarta leegnosa soo dhawaada haddii aad maqli jirteen khayr ha samayn shari kuuma timaadee waatana iyadii oo muuqaale ninkan intii uu islahay naagtan uur kale oo isbitaalkan joogta lacagtan u aruuri oo caawi ayay isla asagii ku bilaabay oo lacagoo boorsada ku watay ka baxsane markii uu u soo aruuriyey lacagtii dhanna wuu siinaa iyadana waatanaahe way u mahadceline lacagtaana oo walba qarshay ka wadatay oo waxay ahayd lacag fiig ah markii uu ka tegay qashinka guridii sidoo kale uurkuna wuxuu ahay mid been ah waa kana isagana waa la qarxina midaan maanta mishikan inay fuliso way isku soo diyaarisa dharkii intay bedela timihii iyada dhan waxay ku soo baxday nooc kale kadib intay soo baxday waxay u imaanay dhakhtarka qaybta qalliinka waxay ku dhehaysaa waxaa kaa rabaa inaa iga dhigta nambar 3 isaguna waxa uu sheegaa in qalliinkeeda la diyaarinayo asbuuca soo socdo haddana ay iska sii bixisa lacagta iyada oo lacagtii soo bixi rabto ayaa albaabku waxaa ka soo galaya midkii ay lacagta ka soo xadaysa iyo gabar yar oo dhalo isaga la socoto dhakhtarku midkan wuxuu ku dhahaa adiga ballantaadii ma la gaarin waxaa ka dhiman 1 saac isaguna wuxuu dhahaa waa ogahay laakiin waxaa rabaa hadda inaa lacagta sii bixiyo si gabarteeda yartaa qalliinka loogu sameeyo boorsadiisii markii uu
furana lacag dhan muku arkaayo ileen horaa looga baxsadee. dhakhtarku midkan wuxuu ku dhahaa waa ka xumahay inaan arrintan ku dhaho adigoo aanan bixin lacagaha loo baahan yahay gabartaada yartaa qalliinkeeda ma bilaabi karno. gabadha yar aabaheed waxay weydiinaysaa sababta uu u murugaysan yahay iyo inay wax walba caadi yihiin. isaguna gabadhiisa niyadda u dhisaa wuxuu ku dhahaa waxaa jiro arrin yar, arrintaas yartaana aniga xalina. adiguna markii aad ogaatay in gabadha yartaa been loo sheegay muuqaalka leeg saare. dhakhtarkii intuu ku soo jeesto wuxuu dhahaa haddii aad aragtid lacag waraaqad ku jirto aniga isoo wac. waraaqada dhinaca kore waxaa ugu qoran Stephanie oo ah gabadheeda yartaa magaceeda. saaxiibtiina waatanahay waxay fiirinaysaa waraaqada magaca ku qoran waxayna arkay in gabadha yartaa magaceedu ku qoran yahay. iyadoo waraaqadii ku sii jeedo ayaa dhakhtarka intuu soo jeediyo wuxuu ku dhahaa daayad Soomaalida igu dhihin lacagta hadeera bixina. iyadoo walwalsanay dhakhtarka waxay ku dhehaysaa waxaan u maleynaa inaan lacagta soo tirin hadeera baxa banaanka ku soo tirina. dhakhtarku wuxuu la yaabay midaan waxa ku dhacay markii ay banaanka u soo baxda waxaa qabana aabihii iyo gabadhiisa. intay isku naxday lacagtii waxay gelinaysaa buug aysan aqoonin cidda iska leh. intay soo jeesatay Stephanie aabaheed waxay weydiinayay wuxuu ka rabo. wuxuu ku dhahaa xoogaa ka hor Soomaalida ku jirin qolka qaliimada. iyaduna waxay ugu jawaabay haa waa saxan tahay. wuxuu ku dhahaa qaybtaas iyo agagaarkeeda muku aragtay gabar. iyada timaheeda waxaa ku jiray cadcadaan uurna way lahayd. waxaan aaminsanahay iyadu inay tahay qofkii i xaday. iyaduna waatanahay waxay u sheegaysaa inaysan qof dhan arkin oo tilmaamahaas leh. waxay bilaabay inay iska dhigto qof arrintaas ka xun wayna u tacsiyeene. gabadhii yareed ee Stephanie buugaagtii ayadaa iska lahayd intay soo qaadatay aabaheed waxay ku dhehaysaa na soo bixi. iyada oo u malaysa inay arrinteeda u saxan tahay kuwaan macsalaamaynay. isla markiina waxay ogaanaysaa inay kuwaan buugaagta iyaga iska lahaayeen ayna qaateen alaabtooda. midaan wax dhan ma ka dhintaan waxay rabtaa dharkan inay qaadato ay kuwii hadda ka daba tagto inay lacagteeda ka soo ceshato.